Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaalaa wabarakaatuhu. Kusoo dhawaada janaalkayga Firdawsi isku filan. Waa mar kale iyo video. Please haddii ay tahay markii kuugu horeysay oo janaalka soo booqato, waxaan kaa codsanayaa inaad subscribe garayso, asxaabtaada kale la sii wadaagto oo ku mahadsantahay daawashada muuqaalkan. Asxaabii soo dhawaada, aad iyo aad ayaan idin soo dhaweynayaa. Alxamdulillaah, ilaahay maadoo dhan u sugnaatay isoo celiya mar kale anoo caafimaad qabo. Waxaan rajeynaa idinkana inaa caafimaad qabtiin. Inta xanuunsan Allah subxaana wa tacaala Allah caafiyo, inta dhimatana Allah subxaana wa tacaala Allah u naxariisto, inta muraad leh muraadkooda Allah subxaana wa tacaala Allah u sahlo, qof walba oo safarka Allah subxaana wa tacaala Allah u fududeeyo. Inta balamaha sugayso gabadhayda ku jirta balan kheyr qabto, insha Ilaahay subxaana wa tacaala Allah siiyo, iyo arrimahay ay rajeynayaan oo mid lagu guuleystay Ilaahay subxaana wa tacaala Allah uga dhigo. Qof walba oo hami leh hamigiisa Ilaahay subxaana wa tacaala Allah u hagaajiyo. Qof walba oo guul rajeynayana Ilaahay subxaana wa tacaala guul wanaagsan u rajeynaya biidhnillaah. Qofka hadduu rajeynayo inuu wax sameeyana waxaa loo baahan yahay dadaalkeedii inuu la yimaado, Ilaahay subxaana wa tacaala u tala saarto. ومن يتوكل فهو حسبه. marka Ilaahay wuu nagu filan yahay mar walbo iyo meel walbo joogno. Ilaahay subxaana wa tacaala aan tala saarano. Asxaabaysa aan horeenku ku sheego videoga hore aqalkiisaba inaan iskoolaadka la xiray, waxbarashadii ciyaalka waxyaabihii ay guriga markaan joogno aan sameyn lahayn. insha Allah nafteyda waxaan kula dardaarmayaa cabsida Ilaahay mar walbo in Ilaahay subxaana wa tacaala aan ka cabsano. Ilaahay subxaana wa tacaala awlaadeena aan uga cabsoono, ilmaheena yaryar oo Ilaahay mas-uuliyadeedana saaray oo maalinta yawmal qiyaama annaka la weydiin doono in Ilaahay uga cabsano horta raalli ahaado. oo markay maxaa la dhahaa iskoolaadka hadda la xiro inaynan geemam iyo maxaa la dhahaa TV iyo aan u fasixin taleefano oo aan u sameyno jadwal ay wax ku bartaan. Activity aan geyno, cunugiis weyn aan geyno, banooni aan geyno, karataay aan geyno, guriga horta laga bixiyo, maxaa la dhahaa taxfiid al-quraan la geeyo, carabi la geeyo, maraakiista ilmaha xoogay soo rooroon yihiin. marka cunugii wuxuu yeelanayaa cunug hami leh. iskoolka markii hadhow ku noqdana asoo maasha Allah niyad iyo jirba u dhisan ayuu ku laabanayaa iskuulkiisa hadduu Ilaahay yiraahdo. marka anaga hadda waxaan u socdaa Miss Cabiir Dhaaya Safwa, hadda ka hor soo geliyay xataanadaas. maasha Allah shalana waa ku laabtay, aad iyo aad aan uga soo helay kulley masaarida. maxaa la dhahaa waxyaabaha ay dhahaan waa baraynaa ilmaha ma wada baraan, laakiin maasha Allah way ku dadaalaano caqiida ahaan iyo maxaa la dhahaa wax way soo baraan, quraan kaliya ma baraan ayaka. marka maasha Allah tabaarakallah. Ilaahay subxaana wa tacaala awlaadeena Ilaahay waxbarashada Allah noo jeclaysiiyo. meelaha aan ka keenay oo gaalada qalbiyadooda Allah ka bixiyo, yar iyo weynba meelaha dhulkaas gaala oon ka keenan qalbiyadooda Ilaahay subxaana wa tacaala Allah ka saaro. marka hooyo walbo oo Soomaaliyeed isniin oo wadanka Masar ku nool iskoolka lagu xiray iska seexo. waa inaan dadaal badan bixino. iskoolka hadda soo socdana waa inaan usii diyaar garowno manhajka quraanka. cunugaaga haduuna haynin waa inaan quraanka ilmahaas manhajkaas aan sii barno. dadka qaar hadda isoo weydiiyo maxaa cunugayga laga rabaa. cunugaaga hadduu year 1 yahay laga rabaa from nas ila naba laga rabaa, suuratu naba ama ilaa birbinaas laga rabaa. haddii oo grade 2 yahay waxaa laga rabaa walmursalaat ilaa suuratu almujaadala qad samica Allah. haddii oo grade 3 yahay waxaa laga rabaa suuratu xadiid ilaa shuuraa laga rabaa. haddii oo grade 4 yahay fusilat ilaa cankabuut ayaa laga rabaa. haddii uu yahay maxaa la dhahaa grade 5 uu yahayna qasas ilaa ambiyaa laga rabaa. haddii uu yahay grade 6 waxaa laga rabaa taha ilaa yuusuf. haddii uu grade 7 yahay waxaa laga rabaa maxaa la dhahaa
waxaa laga rabaa Huud ilaa Anfaala laga rabaa. soo marka insha allahu tacaala hadduu ilaah yiraahdo ulaada aan ku dadaalno biidnillah. cunuga hadduu qur-aanka uusan dhammeyn karin xataa waxaa sameysaa inuu meel fiican gaaro biidnillah. intaa wadanka ku cusubta oo iskoolaad iyo waxba aadin waxaa aad iyo aad ugu mahad celinayaa hooyooyinka ayagoo waxyar joogo ilmahooda qur-aanka dhammeyn rabaan. maasha allah, mabruuk ayaa idin leeyahay. hooyooyin karti leh ayaa tihiin, ilmahooda ku dadaalay, ilmaha carabiga kula dadaala, kitaabka maxaa la dhahaa oo tajwiidka kula dadaala, waxbarashada ciyaalka xooga saara insha allahu tacaala. intaada iskool iyo qaxarkiisa iyo iska daba wareegiisa aada gelin, fursadda cunuga way ku yaraanaysaa because saacado yar oo haystaa. saacadahaas macalinka ugu qabatid waxyaabihii uu iskoolku ka caawinaya, makii dugsigu ka caawinaya, muxuu ka caawinayaa. marka ilmahan kula dadaalno samarka. takamucul khaamis haddii aad degan tahay dugsiga macalin Ridwaan khayra dhammaan allaha siiyo, ilaa cilmigiisa cilmi naafica allaha uga dhigo. jadwal cusub uu soo dejiyey sidoo ilmaha qur-aanka ugu bari lahaa. haddii aad takamuc degan tahay la xiriir insha allahu tacaala hadduu ilaah yiraahdo. lambarkiisa fiidiyogaan soo dhigayo oo macalinka uu ku faahfaahinayo ayuu ku hoos qoran yahay insha allahu tacaala. whatsapp uu leeyahay, whatsappkaasaa kala xiriiri kartaa. wixii informationana macalinka weydiin kartaa biidnillahi tacaala. soo maasha allah, macalinka ilmaha uu ku dadaalaa, fan ayuu sameeyaa, wuxuu geeyaa meelaha xadiiqooyinka oo kale markay fasaxyadoo kale u geeyaa. maasha allah tabaaraka allah, aadna way u jecleysanayaan insha allah. inaa wax badan ka faa'iidiyana rajeynayaa biidnillah. marka mis cabiiraan u tagay, waa soo wareystay maasha allah, si fiicanay noo soo dhaweysay. mis cabiir haddii aad hore u maqlin waa Safwa, hadda ka hor soo duubay. maxaa la dhahaa insha allah hadduu ilaah yiraah fiideo kale oo isla ayada meeshaasna waa idiin soo gudbin doonaa biidnillahi tacaala hadduu ilaah yiraahdo. soo marka la xiriir insha allah. haddii aad u baahan tahayna waa lambarkeeda waa kusoo dhigayaa biidnillah. meeshaanaaba kusoo dhigayaa, waa soo biin karayn doonaa biidnillah. ciwaankeeda iyo telefoonkeedaba whatsappkaba intaa kusoo qori doonaa. lacagteeda waa 3,000 oo geni oo maxaa la dhahaa oo masaari ah. baawraacana gooniyo ka yahay 700 ilaa 750 geni waaye. maxaa la dhahaa oo baska cunuga kuu qaadayo oo kuu soo celinayo. mis cabiir from 1 year ay qabataa ilaa 15 years out. soo marka cunugaaga anytime haddaa waxbarasho aadaysid xataa waa yacni waa geysan kartaa. midda kaleetooday noo sheegtay inay bisha June ay furayso hadduu ilaah yiraahdo. maxaa la dhahaa meel cusub oo waalidiinta inay furayso insha allah hadduu ilaah yiraahdo. marka meeshasna ka faa'iideysta, waana idiin soo iclaan garayn doonaa, waa idiin soo duubi doonaa hadduu ilaah yiraahdo. buildingka ay hadda degan tahay building u dhow ayaan furayaa ayay dhahday oo caruurta waalidka wax ku bartaan. marka insha allahu tacaala haddii aad hooyo tahay fadhiga ka kac, weli jaanisaa haysataa, waxaa baran kartaa adoo ilmahaaguna wax kuu baranayaana wax baran kartaa from 1 year. waa ilmo aada u yaryar. soo 1 year inkasta oo haddii aadan laazim aysan ahaynin inaa adi haysatid ay fiican tahay. hooyada cunuga intuu hadalka baranayo inay ayada haysato, hadalka ugu horeeyana ayada barto, wax uga wanaagsan malaha hadayna wax daruufa aysan keenin. marka insha allah asxaabi aad iyo aad u mahadsantihiin. soo dhawaada ayaa idin leeyahay. ilmaha samarka aan ku dadaalno biidnillah. waa imaana meesha waa kaas. mis cabiir jiiradeeda dadka ciwaanka aada uga qalqaldamaa, laakiin waa villa 39 waaye villadeeda biidnillah. waa kaas hadda aan farta ku fiiqayo. marka idin salaamaya, soo dhawaada ayaa idin leeyahay. mar kale waa idin mahad celinayaa sida igugu xiran tihiin, sida ii dhiirigelisiin wanaagiina. jazaakum allahu khayran. ilaahay ajri xasanaad allah idinka siiyo. haddaa ina shanqar maqashaan banaanka baabuuraha socoto, waxna hoosaa lagu sameynaa, marka ka raali ahaada ayaa idin leeyahay asxaabe. waa kasaa mis cabiir meesheedu waa imaaday.
next video بإذن الله تعالى بحي قدها آيات انتصي دونا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.